السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale cusub. saaxiibayaal, qisadeena caawa waa qiso aad iyo aad u murugo badan, qiso calool hur ah. qisadan waxay ku dhacday gabar yar oo lagu magacaabo Jana. Jana waxay ka soo jeedaa macnaha ay u dhalatay dalka Masar. Maalin Jana waxaa soo gaaray gubitaan, macnaha jirkeeda dhan wuu gubtay, xitaa waxay ka gubatay meelaha ixsaasiga ah. macnaha gubitaanka wuxuu gaaray ilaa xubinteeda taranka. kadib waxaa loo qaaday isbitaal si loola tacaalo. aabbaheeda ayaa loo wacay oo waxaa loo sheegay inay gabadhiisa gubatay. marka aabbaheeda halkuu ku maqnaa. Jana hooyadeedii aabbaheeda way kala tageen, waxaana Jana iyo walaasheeda ka weyn haystay oo korsanayay hooyadood, macnaha si ay u daryeesho oo ay xaaladoodu ogaato. marka sidii hooyada u haysatay waxaa ka qaaday oo la wareegtay ilmaha barbaarintooda iyo korintooda ayeeyadood, macnaha ayeeyada aabbaha dhashay. marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, Jana yaa gubay? macnaha Jana ma iska guban oo dab kacay waxaas ma ka guban? Jana waa la gubay. marka Jana qofka gubay yaa waaye? qofka gubay qof kale ma ahan, waa ayeeyadeed. waa ayeeyadeed soo korisay oo ay la joogtay, ahna ayeeyada aabbaha dhashay. kadib Jana waxaa loo qaaday isbitaalka. arrintii waxaa ogaaday aabbaheeda. marka sababtay u gubtay ayeeyada iyo waxyaabahaas noo dambeyso ogaan doonaa. marka Jana isbitaalka la geeyey, dhakhaatiirta ay baareen, maxaa la arkay? horta Jana sida aan sheegin waxaa soo gaaray gubitaan, jirkeeda wuu gubtay ilaa gubitaanka uu gaaray xubinteeda taranka. xaaladeeda aad iyo aad ay khatar u ahayd. haddana markii baaritaanka badan la sameeyey waxaa soo baxday in Jana lugteeda bidix uu dhaawac aad u daran soo gaaray. marka gabadhan yar way gubatay, maxaa soo gaarsiiyey dhaawac? lugtan inay dhaawac noqoto maxaa keenay? adiga lugteeda markii la arkay inay dhaawacaas uu soo gaaray, waxay dhakhaatiirta dhaheen lugtan waa in la gooyaa, haddii kale dhibkeeda ama saameynteeda waxay gaaraysaa jirka qaybihiisa kale, waa in la gooyaa. horta musiibada koowaad waxaa waa in gabadhan ay gubatay. musiibada labaadna waxay ahayd in gabadhan uu dhaawac ka soo gaaray lugteeda bidix, ayna qasab tahay in la gooyo. musiibada saddexaad waxay tahay gabadhan markii la baaray, baaritaana socday, waxaa la ogaaday gabadhan in ay kufsi la kulantay. macnaha waxaa la ogaaday gabadhan in la kufsaday. waa idan musiibo kaloo saddexaad. haddana waxaa lasii ogaaday, horta marka hore baa la ogaa in xubinteeda taranka uu dhib soo gaaray, laakiin hadda waxaa la ogaaday in raximka, macnaha ilmagaleenkeeda, uu dhaawac daran soo gaaray. macnaha gabadhan aaday u gubatay. gubitaankana ma ahan gubitaan dab kacay waxaas, macnaha gabadhan si ku talagal ayaa loo gubay. qofta gubtayna waa ayeeyadeed. marka waxaa isweydiinaysaan, gabadhan yaa kufsaday? qofka kufsaday yaa waay? gabadhan qofka kufsaday qof kale ma ahan, waa abtigeed ayaa wuxuu kufsaday gabadhan. sababtoo inta badan waxay joogtay guriga, ayagaa soo korsadeen. marka gabadhan xataa oo aan wili qaangaarin gabar yar ah ayuu ninkan ku xadgudbay. wuxuu ugu xadgudbay iyo sababtas ma naqaano, laakiin isaga ayaa sidaan sameeyey. marka in gabadhan lagu waxaa keentay, ayeeyadii waxay qarinaysay wuxuu geystay wiilkeeda, sababtoo gabadhan wuu kufsaday, waxayna waasay gabarnimadeed. marka ayeeyadii waxay soo qaadatay waxyaaba wax loogu gubo. gabadha jirkeeda gubtay ilaa ay ka gubtay xubinteeda taranka. si waxay isdhahday qoftan gabarnimadeedii uu waxyaabahaas in ay baaba'day, si aan loo dareemin gabadhan gub, macnaha gubitaankan ku sameeyey. sidaa ayaa kaliftay, waxayna asturaysay ayada oo ay qarinaysay ceebta wiilkeeda oo kufsaday gabadhu abtigu ahaa. hadda waa fahanteena umaleynaa sababta gabadhan loo gubay iyo musiibada meesha ka timaaday. marka lugta maxaa keena marka in dhaawacaas uu soo gaaro? marka dhaawac waxaa sababay abtigan mar walba markuu gabadha kufsado luguhu ka xirxiraya, sida adiga marka xoolaha dabraaya aawe, sida adiga luguhu ka xirxiri jiray mar walba lugaheedoo si kale inuu u xiro. marka xiritaankaas badan iyo kufsigaas badan oo u geystay ayaa waxay keentay gabadhan in ay lugaha dhaawac ka noqoto,
ayna sababto in lugteeda dhan la gooyo. Adiga ugu dambeyn gabadhii waxaa laga soo bixiyey isbitaalka ku jirtay, waxaana loo soo wareejiyey isbitaal kale si baaritaan kale loo sameeyey. laakiin isbitaalkii wuxuu sheegay isla natiijadii hore, gabadhiina waxaa laga gooyey lugtii. waayo lugta hala gooyey ma xume, haddana gabadhan musiibo kaloo afraad u timaaday oo ah markii qaliinkii iyo wixii la dhameeyey oo gabadhan leesdhaha markaan okay waaye, waxaa soo baxdayba in keliyaheeda aysan shaqaynin. 2 maalin kadib gabadhii wax ma cunin, wax la-aan, sababtoo keliyaha ma shaqeyn. haddaysan keliyaha shaqaynin qofkii in uu cunto qaato biyi qaato way adkaaneen. marka gabadhii 2 maalin wax ma cunin, keliyihii ma shaqaynayaan, waa haddana musiibo kale. adiga waxay gabadhii 2 maalin meelahaas iska noolaato, ugu dambeyn Jana way geeriyootay. sababta u geeriyootay isweydiinayni, waxay la kulantay dhibaatooyin badan. waa la gubay, ilaa xubinteeda taranka ayuu gubitaan gaaray, lugtaa laga gooyey, kelideeda way shaqayn weysay. waxa sidaa u galeen qof kale ma ahan, waa ayeedeed iyo abtigeeda oo naxariis laawayaal ah. ayeedeeda saana ku samaysay, abtigiina xaaladiisa waa ogtihiin oo gabadhan uu abtigu u yahay ayuu kufsaday. marka ma ogi bahalnimadaas iyo naxariis daradaas meesha ka timaaday. marka aabihii aa isweydiineysaan inta sheekadan waxaan ii socotay aabihii marka arrinta loo sheegay wuxuu ka dhacay guriga ay ilmaha joogeen, wuxuu soo waday gabadhii kale. laakiin alxamdulilah gabadhan kale way ka badbaaday wax kufsi iyo waxyaabahaas kale. macnaha lama kufsan, laakiin iyadana jirkeeda dhan marka la fiiriyo waxaa soo gaaray gubitaan. macnaha iyadana jirkeeda dhan wuu gubnaa, laakiin iyada lama kufsan, dhibaato kale ma lahayn, alxamdulilah. ugu dambeyn adiga waxaa la duugay Jana. waxaa isku soo baxay dadka xaafadda dhan, wixii magaalada degdhan way isku soo baxeen kadib markii ogaadeen dhimashada gabadhan iyo wax sababay. Jana waxaa loo dhigay tacsiye weyn, dad badan tacsiyada kasoo qayb galay, si fiican loo duugay. laakiin arrin aad iyo aad u xun ayaa ku dhacday Jana, iyadoo gabar yar ah, haddana xaaladaas qof weyn oo adkeysan karin, iska dhaaf gabar yar oo da-daas jirto. marka ugu dambeyn Jana way iska dhimatay iyadoo noloshii ku dhibaatootay. marka waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu baryaynaa inuu qabrigeed u waasiciyo, inuu ilaahay subxaanahu watacaala meel kheyr qabto wanaagsan geeyo. ugu dambeyn waxaa la soo qabtay ayeeyadii iyo abtigii, booliska way soo qabteen, way xireen. marka shacabka iyo dadka magaalada dhan waxay dalbanayeen in la dilo labadooda. laakiin aan ahaan waxaa dhihi lahaa yaa la dilin. qofka marka fiiri haddii oo lagu xukumo dil, waa la qabtaa, waxaa la geeyaa inta badan meesha lagu dadalayo, hal ma nafta ka baxdaa. ani ahaan waxaa dhihi lahaa qofkan hala qabto ama labadooda hala qabto, jirkooda maalinba gabal halaga gooyo si ay u dareemaan xanuunka. jirkooda waxaaba in maalin gabal laga gooyo, in mar walba la cadaabo iyagoo ay ka taagan tahay ilaahayow maa nafta mar naga bixsid inay dhintaan. sababtoo ujeedaan waxay gabadhaan ku sameeyeen ma ahan wax fiican oo wanaagsan. adiga waa labadooda waa la soo qabtay, waa la xiray, dadkiina waxay ku khilinayeen haladil labadan qof. marka sheekadoodan meeshaasay ku dambeysay. marka waalidiinta dhegeysanayo mar walba ilmihiina ka warhaya, mar walba caruurtiina ka warhaya, sababtoo caruurtan waxay idinku yihiin ammaano. waa nimco ilaah idin siiye sax, laakiin waxay idinku yihiin ammaano, mas-uuliyad idinka saaran. waa inaa ka warhaysaan xaaladooda, inaa ogaataan. haddaa labadiina kala tagteen ma ahan in ay ilmaha dayacmaan, ma ahan in ilmaha nolol xun iyo rafaad ay maraan sida gabadhan oo kale. marka isku day inaad ilmihiina ka warhaysaan. war ilmaha qof ha ku aaminin, qof adduunkan jooga ha ku aaminin. macnaha dad fiican way jiraan, waxa laga yaaba walaashaada, walaalkaaga, abtigaaga inay jiraan, laakiin saasay tahay mar walba isku day inaad ilmaha adig ka warhayi karto, ama aabahooda ha ogaado ama adiga hooyada ogaawo. haddii kale waxay la kulmi doonaan sida Jana oo kale. Jana keligeedna ma ahan, ilmo badanaa jiraan oo xaaladan ma ahay xaalad kaloo ka daran la kulmeen. marka saaxiib yaal, sheekadan murugada badan oo aad ku xanuun badan oo xitaa marar qaar aan fiicna in laga sheekeeyo, halkan ayay ku eg tahay. inta aynu muuqaalkii dib u kulmi doono, ammaano alle. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.